bishaaradan waxay ku socotaa waxay tahay qof kastoo u baahan inay maalintiisa noqoto maalinta ugu quruxda badan qof kastoo u baahan in maalintiisa shaydaan iyo waswaaskiisa laga dheereeyo qof kastoo u baahan asigoo wax yar dhahay isla markaana wax weyn lagu abaalmariyo ajar iyo xasanaad nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo inoo bishaareynayo asxaabtiisa u bishaareynayo wuxuu leeyahay man qaala laa ilaaha illa allah qofkii dhaha laa ilaaha illa allah wahdahu la sharika له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قفكي دعاء ير انت ير لها ضمانتي ان حفظسنahay hadaadan xifdisanayn meelku qoro oo xifdi oo dheh nabiga wuxuu leeyahay qofkii dhaha maalintii fil yawmi 100 marra maalintii qofka dhaha 100 jeer wax badan ma ahan 5 daqiiqo ay ku qaadanaysaa bal xisaabi adiga nabiga wuxuu leeyahay qofkii inta dhaha waxay kaanad lahu wax usgnaaday waxay tahay oo waxa lagu awaalmarinayaa waxay tahay cadla 10 riqaab asigoo waxay la mid tahay xureeyay ilaahay dartiisa uu xureeyay tawan qof adoonnimo loo heestay qof dhan ibn aadan ah adoon aha isla markaa noloshiisa u soo celisay ajarkiisa tawan qofood adigoo xureey ay la mid tahay wa kutibat lahu isla markaana waxa loo qorayaa 100 xasanah 100 xasano adigoo sameeyay la mid tahay waxaana laga dhaafayaa sidoo kale 100 dambi uu galay maalin kasta dambi baan galnaa maalin kasta adiga wax aadan ogeyn baa ka dhaca nabiga wuxuu leeyahay waa lagu dhaafayaa wa kaan lahu waxana uu ahaanaysa xirsa min ash-shaytaan shaytaan dhufays bay ugu ahaanaysa yawmahu maalintiisa illa uka hatta yumsi illa galabta laga gaaro walam yati man yimaadu ahadun bi afdali mimma jaa bihi qof ka fadli badan yani doodan dhahay maan qiyaama iimaanayo illa ahadun qof maahane amila akthara illa qof wax badan yani inta ka badan 100 jeer in ka badan dhahay qofkaas una ka fadli badan qof ka fadli badan maan qiyaama iimaanaya ducadan badiyay maxad sugaysaa carabkaaga ku badi ducadan maxad sugaysaa badi dadka u sheegay dadka gaarsi adigana maantaada ku qurxi laanahu maan qiyaama iimaanaya qof adiga ka fadli badan ilaahina dhiga kuwa yimaada maan qiyaamo ayagoo ducooyinkan la yimaado. Assalaamu alaykum.